عروريو عرول دكو ودعودان midnaan caynayne oo caradina hala iseeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mar kale iyo coach mahad. ayaantan waxaan rajaynayaa inaad isweydiinaysiin coach mahad xaguu ka baxay, xaguu aaday maalmahan maaragtaa muddo maaragtaa ma uusan soo gelin live-kiisii iyo fiidiyadiisii. runtii insha Allah waa joogaa, waan yara mashquulay. soo dhawaada dhammaantiin. mar kastana waxaan inta badan soo galaa marka aan rabo runtii dad cusub inaan qoro ama dad cusub inaan noloshooda wax ka bedelo. hawsheydii waan wadaa, programku waa sidiisii, runtii gruubyada weli waa sidoodii. soo dhawaada marka insha Allah dhammaantiin. safaraan ku maqnaa laakiin alxamdulillah hadda waan soo laabtay, waan joogaa. halkaad naga daawanaysiin si toosa waa YouTube-kayga runtii Mahad Axmed Official, iyo Facebook-kayga Mahad Axmed Cali. qof kasta oo nagu cusub runtii waan soo dhaweynaynaa insha Allah. intii hore noola joogtana waxaan leenahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin insha Allah la joogitaankiina insha Allah. dhammaantiinna waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalada la sii wadaagtiin asxaabtiina si ay uga faa'iidaystaan. mar kasta waxaan dadka runtii aan la wadaagaa dhanka lifestyle-ka waxaa jira channelo badan ama maaragtay dad badan oo ka hadla waxyaabo kala duwan, laakiin anigu inta badan dadka waxaan kala hadlaa waxay tahay dhanka lifestyle-ka, nutrition-ka iyo qofku sidoo markaas waxa weeye jirkiisa u qurxi lahaa. sababtan u qaatay mawduucaas ama aan barnaamijkaas u xiiseeyo ama aan uga shaqeeyaaba waxay tahay qofku waxa ugu muhiimsan runtii waxa weeye inta uu nool yahay. lifestyle-ka waxa weeye waa caafimaadkiisa, waa shaybkiisa iyo quruxdiisa iyo stylekiisa. taa marka haddaba hadduusan qofku hadaf ka yeelanin ama uusan qorshe iyo plan maaragta ka degsanin, qofku ma noqonayo qof runtii noloshiisa ku faraxsanaada, caafimaadkiisa ka shaqeeya, stylekiisa ka shaqeeya ma noqonayo. qofkii wuxuu noqonayaa qof maaragtaa runtii wax alla wixii kasoo horbaxa iska cuna, qof aan dee markaas waxa weeye shape ahayn, dharkii kusoo baxaynin, stylekiisu maaragtaa runtii uusan maaragta farxad gelinayn. taa markay dhacdana waxaa qofkii ku dhacayaa inuu farxaddii ka guurto, in maaragtaa runtii qofkii hamigii iyo maaragtaa waxyaabo badan runtii ay meesha ka baxaan. marka taasaan marka u doortay runtii inaan qof kasta maantay aan u sameeyo system cunto iyo plan runtii qofku si uu u bedelo lifestyle-kiisa iyo nutrition-kiisa iyo nafaqadiisa. dad badan ayaa berigan arrimahan bilaabay, waxay dhihi jireen oo Soomaaliyeed, maanta wuxuu ka hadlayaa cunto, wuxuu ka hadlayaa sidan, war wax kale ka hadal. waxaysan isweydiin qof dadkaasu marka waxa maaragtaa meesha baasho ka xumaatayba waa cuntada. qofka buuran waxa ka buuran waa cunto, kan dhuuban waxa ka xun waa cuntadii. marka sideedaba cuntadu waxa weeye Soomaalidu uma fahansanayn ma ahane, waa waxa qofka maaragtaa runtii waxyaabo badan u horseeda. waxyaabo badan maanta oo aadan ogeyn ama aad maalin kasta dhakhtarka ugu sii socoto. dhakhtarkaad u tegaysaa, waxa uu ku leeyahay miisaankaaga dhin, waad ku laabanaysaa. wuxuu ku leeyahay waxaasaa ku soo haya, waad ku laabanaysaa. wuxuu ku leeyahay halkaasa haddana lagaa soo haya, waad ku laabanaysaa. waxaasoo dhan haddaba maxaa keenaya? marka su-aashaas weli ismaad weydiin. miisaan haddii laga hadlo cuntada wey. cudurro badanoo waxaa jira dee cuntada aad cunayso iyo sidaad u nooshahay iyo waxaasoo dhan martu runtii waxa weeye uusan dhakhtar kasta waxba ka qaban karin, laakiin adiga unbaa dhakhtar isku noqon karaa. adiga unbaa cuntadaada wax ka bedeli karaa, noloshaada wax ka bedeli karaa. marka runtii adigoon cuntadaada bedelin lifestyle-kaagu ma isbedelayo, quruxdaadii shape-kaagu ma noqonayso. haddaan annaga Soomaalinahay runtii dee waxa ilaahay nagu itixaamay cuntooyinka adduunka ugu xun ama cuntooyinka adduunka dee markaas waxa weeye dadka dee maaragtaa runtii wax fahansan aysan cuninin. qof cuntadii wax kaloo ku cuno waayey waa sax, qofkaasoo kale. laakiin adigoo heli kara maanta inaad hab caafimaad u noolaato, adigoo heli kara maanta inaad waddo maaragta aan taas ahayn inaad qaado, inaad maanta ku soo koobto noloshaadii oo dhan
daqi burcad iyo bariis cad iyo baasta cad iyo saliid cadday iyo hilib cad oo baruur inaad maanta noloshaadii dhan intaas ka dhigto ood habeenkiina cunto maalintiina cunto subaxiina cunto waxaa la ii sheegayay maamo wadamadan Yurub ku nool oo dee maaragta dhaqaatiirtii ay la yaabeen xanuunkeeda maanta dee markasta waxa weeye xanuunsan oo markasta waxa weeye ay ka yaabeen markaas waxay isdheen marka qofkan meel laga hayr anuu ma garanayo cudurna ugama jeedno wayna xanuunsantahay maamadii marka waxaa la weydiiyey bal waxaa la marka bal cuntadeeda aan wax ka weydiino markaas subax maxaad cuntaa lagu yiri wal wiiga nooga soo sheeke maxaad cuntaa tusaale ahaan isniinta bariis iyo baasto iyo canjeelo u sheegtay waxay dabcan waxay isdhaheen la yiri maalinta talaadada ahay cunto kala cuntaa bariis iyo baasto iyo canjeeladii u sheegtay la yiri dabcan malaha waxay isdhaheen maalintaas kale ee maaragta arbacada ay cuntadii badishaa intii u sheegtay bariis iyo canjeelo iyo baasto iyo rooti haddana khamiistii haddana jimcihii malaha marka waxay isdhaheen markay santaa beri ka qoreen bariis iyo baasto iyo bur iyo hilib iyo daqiiq laga qoray ayay isdhaheen wiikan dhigay malaha cunto fiican cunta bariis iyo baasto iyagu sidii haddana ay noqdeen todobadii bariisaas ay noqotay markaas ilaa exercise maxaa sameeyay say tiri waxba ma sameeyo markaas ogaadeen maaragta ciladii iyo cudurkii gabadha hayay ama maamada hayay waxa kadib marka cuntadii loo qoray marka ay jooji waxa soo dhan cuntada cun faawadi fay macnaha maxay tahay marka dad badan ma oga waxay ku leeyihiin intaan xanuunaysa intaan laga hayaa inta sida naga tahay lafahan xanuunaya wandaalanahay dhiikar baan u dhacay waxa soo dhan waxa weeye waa nolosha waxa aad cuntada aad cunayso weey waxa kamida biyaha waxa kamida noloshaada waxa bedeli kara hurdada waxa kamida noloshaada waxa bedeli kara cuntada aad cunayso quraacdaada qadadaada cashadaada snaagaaga 5 jeer wax cun waxa weeye miisaankaagana dhin 5 jeer wax cun hab caafimaadna u noolow 5 jeer wax cun lifestyle-na hayso 5 jeer wax cun haddana miisaan yoo ku fuulin aniga halkaas waxaas agteena yaala laakiin adigu maxaad haysaa hal waqti wax cun miisaanku ha kugu bato hal waqti wax cun waxa weeye caloosha ku weynaato ka waqti cun waxa weeye dhiikar iyo balaayo dhan ha timaado ka waqti waxa soo dhan waxa weeye waa cunto xumada weey anaga haddaan Soomaalinahay cuntada hal waqti laga yaabaa inaan cunnaba tusaale ahaan hal qado cunaya miisaankiina uu ku kordhaya ma is weydiidayso macnaha waxa sababay qofkan 5 jeer wax cunaya miisaankiisu uu dhacaya ama miisaankiisu uu xakameynaya dadka cadaanka ma fiirsateen way ka cunto cun badan yihiin maanta dhan cunto cunayaan ما صبحي وعنايا برقدي وعنايا قدد وعنايا قلبتي وعنايا هبينك وعشينيا هذا ميسان كيس قف ميسان لما ستيل كيس وقروح بدنيه لبس كيس محمر رقي الضمر واسكمت المهدى الشامية دلن وحوي وين كسمان انت وحد هان ما نقولنا يسيدانا نقولنا عرور والله وضع دلا مهمة الضمر كوحي تهي وهو حاب عنايسي يقول قاقي كذا انت صدد بدشو رنتي wax badan isbedelaya coach mahad ayaa diyaar ku ah inuu si free ah ku coach gareeyo waxa jira wadamo coaching-kaygu ka shaqeeyo runtii iyo wadamo uusan ka shaqeynin haddii aad wadamada ku nooshahay runtii waan ku coach gareynayaa cuntadana waan kaa bedelayaa waxaana kula dalbi doonaa ama aan kugula tali doonaa inaad dalbato product aad noloshaada runtii ku bedelayso oo qaybna asaga ka soo qaadanayso qaybna cuntadaadii caadiga ahayd wax ka bedelayso haddaadan wadamada ku noolayn waxaan ku sii doonaa ayagana talo insha Allah aan kugu caawinayo si aad adna cuntadaadaas aad haysato heli karto wax uga bedesho marka labadaas qaab ayaad kala noqonaysiin insha Allah qaybta hoose videoga hoose ayaan waxaan idin dhigayaa teleefankayga WhatsApp-ka ah halkaas aad igala soo xiriiri doontiin insha Allah bidnillaahi kariim waan idin soo dhaweynayaa qof kastoo muuqaalkan soo gaarana u share garee walaalka ama walaasha ama hooyo ama aabe qof kasto oo la jeceshahay in waxa weeye si free ah lagu coach gareeyo cuntada laga bedelo loo saxo cuntadiisii noloshiisa si ay maalintiisii noloshiisu ugu qurux badnaato insha Allah muddo 6 sano ah ayaan programyadan wada runtii 5 sano hadda waa kambiinkan maxaad ka aragtiin 5 sano ayaa ii dhamaatay intan hadda 5 years coaching kan iyo system kan wado
dabcan dee intii horey fiidiyoodii hore u daawatay odagu dee inuu big man ahaa qof kasta uu ogyahay soo ma marka xaqiiqatan 10 sano 12 sano ka hor xaqiiqatan markaan sawirradii aan galay arko iyo 12 sano kadib maantay farqi weyn ay dhaxeeya waxaan ku socday nolol mugdi ah waxaan u noolaa qaab aan qurux badnayn sida Soomaalidu u nooshay bariiska baastada burka daqiiqda hilibka waxaan cunay 6 saac habeenimo ama 12 habeenimo labada habeenimo ayaa cunto cuni jiray baasto karsan jiray aniga haye dad badan hadda sidii ku nool marka waxa soo dhan runtii waxaad u baahan tahay in laga taliyo coachka maarta coachingkiisu waa free waa flash wax lacaga oo lagaaga doonaya ma jiraan kaliya noqo adigu qof go'aan leh qof hadaf leh qof dee raba inuu noloshiisa style-kiisa wax ka bedelo waxaad aniga igu imaanaysaa waa dhanka lifestyle-ka weey siyaasadda igu imaamaysid wax kale igu imaamaysid taasan diyaar ku lahay aad baan idin salaamaya warkan idinku badiyay insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo